iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ku qulqulayeen magaalada Muqdisho kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay isugu yeertay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta Soomaaliya u jooga daafaha adduunka ayaa waxa maanta si rasmi ah uga ambabaxay magaalada Lusaka ee caasimadda Zambia qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay waddanka Zambia mudane Cabdirashiid Sheekh Cali isagoo ku wajahan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho boqolaal dadweyne ayaa ka sii sagootiyay qunsulka dhismaha safaaradda ilaa gegida diyaaradaha caalamiga ee Kenneth Kunde ee magaalada caasimadda u ah Zambia ee Lusaka intii uu san qunsulku ka duulin garoonka diyaaradaha ayaa qaybta nasashada ee garoonka wuxuu kula hadlay saxaafadda isagoo ka warbixiyay ujeedada safarkiisa waxaan maanta u safrayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda ee dawladda federaalka Soomaaliya aniga oo ajiibaya amar ka soo baxay رئيس وزراء ku-xigeenka ahna wasiiradda arrimaha dibadda oo taabanayay in ay diblomaasiyiintu dib ugu soo xaroodaan dalka waxaa xusid mudan dadka Soomaaliyeed oo runtii ku dhaqan dalkan Zambia inay yihiin dad Soomaaliyeed oo shaqaysta caan ku ah in ay wax soo saar leeyihiin dadkan dawladdan iyo bulshadan Zambiana laga jecel yahay lagana ixtiraamo waa dad Soomaaliyeed oo runtii aan aad ugu bogay oo aad u helan oo aad isugu xiran in badanna ilaashanayay safaaraddan oo runtii dayac badan soo martay oo haddii iyagu jiri lahaynna mar hore ayay dhismahan oo safaaraddaani ay burburi lahayd iyaga ayaa inta gacanta ku hayay hadduu baabuurkii safaaraddu dhamaado iyaga gadayay haddii safaaradda guryaheeda badan oo ka kooban guriga safiirka iyo xafiisyada lagu shaqeeyo safaaradda iyo gurigii martida saddexdaas dhismo oo ka kooban oo runtii aad waaweyn iyaga ayaa gacanta ku hayay runtii waxaa kaloo xusud mudan laanta socdaalka oo iyadana halkan ka shaqo gashay muddo hadda 5 sano ah iyo ka badan iyagana runtii waxaan uga mahad celinaynaa hawsha adag ay qabteen ummadda Soomaaliyeed u qabteen oo aanan ahayn kaliya dadka halkan degan wadamada dariska ah oo 9 dal ah ay Soomaalidu ka timaada wadanka Namibia wadanka Botswana wadanka Angola Mozambique Zimbabwe Congo wadamo badan oo noocaas ah ay Soomaalidu ay ka timaada iyo Soomaalidu inta badan wax ka shaqeeyaan baabuurta xuduudaha ay u gudbaan qofku wax yar ayuu baasaboorku kaga buuxsamayaa sidii loogu garaaciyo fiiso iyo entry taas marka waxay sababtaa in durba qofkii baasaboorka buuxsamo oo hadana bil kadib uu kugu soo laabto isagoo baasaboorka ka buuxsamay oo dad badan runtii oo bishii lagu qiyaasi karo 50 ilaa 70 ayaa baasaboorka bil walba qaata waxa kale oo jira dad badan oo iyaguna ku dhibaataysan goboladaas oo Angola oo kale hadda maalin dhow dad baan ka sii deynay goohom ugu sii deynay Mozambique oo kale dad baa maxaan ku raadayay iyagana aan goohom ugu dirnay tegitaanka qunsulka ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii u dambeeyay diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dacallada adduunka ay ku sii qulqulayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa iyadoo safiirkii safaaradda Soomaaliya ee Zambia mudane Maxamed Xasan Dawaara uu isna ku sugan yahay isla magaalada Muqdisho Saciid Muuse Daahir TV-ga Universal caasimadda waddanka Zambia ee Lusaka